beriyaha ka mid ah waxaa jira hilib la iibin jiray hilibka maalmaha ka midana waxay shaka kale qayb ka mid ah hilibku googoynayay aad ayay ishii u xanuuntay waxaana uu cararay dhinaca iyo timajare kaasoo xilliga ahaa dhakhtarka xaafadda waxa uu u sheegay timajarihii inaanu wax weyn qabin ishuna ay u baahan tahay in laga yar nadiifiyo jeermiska dhowr cisho kadib waxa uu dareemay hiliblihii inuu xanuunkiisii siyaadayo waxaana uu u qaaday hilib oo uu geeyey timajarihii waxa uu nadiifiyey timajarihii ishii hiliblaha waxaanu u sheegay inay ishiisu u baahan tahay in la nadiifiyo maalin walba maalmaha ka soo wareegay hiliblihiina uu sii wado maalin walba hilibkii si uu timajaruhu ugu nadiifiyo ishiisa maalmaha ka mid ah sidii caadadiisa ahayd waxaa yimid hiliblihii si loogu nadiifiyo isha waxa uu la kulmay inankii timajaraha oo meeshii aabbihii jooga waxa uu ka codsaday ki yaraa inuu nadiifiyo ishiisa waxa uu ku arkay wiilkii isha hiliblaha laf yar oo kaga jirta wuu ka soo saaray waxaana uu u sheegay hiliblihii inaanay ishiisu nadiifin dambe u baahan doonin gurigii ayuu ku noqday timajaraha inankiisii aabbihii ayaana weydiiyey aaway hilibkii wiilkii ayaa yaabay oo yidhi hilibkee timajarihii ayaa ku yidhi miyaanu ku imanin hiliblihii wiilkii ayaa yidhi haa wuu ii yimid waanan daweeyey oo waan ka saaray laftii aabbihii ayaa xoog u qayliyey kuna yidhi waxaan uga saari waayey si aynu hilibka u cunno maalin walba maxaad uga saartay lafta dulucda sheekadu waxay tahay waxaa jira dad jecel inay ku arkaan adoo rafaadsan